بسم الله ما أنتم حرمنا أن نكون افتمي برنامج كني نظامك إيو فدرالك سومالو عقاتي نظام لير هذا فدرالك مركو عودية مركا بيلا دجن دجمو أما قبل سل دجن إني مركا سياشان قلة دجان قلة دجان كمركا يا أقول بدنانة مركا وأقول بدنانة دتك دجان كاسي تولويك أقول بدن كل لقرب إني مركا يجي إنه دتك soo dooranaya ama dadka codka fiican ku leh golaha deegaanka dadka marka la sameeyo waxa la qiimeynaa qof wuxuu ka soo galaya marka tuulooyinka laga soo galaya marka golaha deegaan in beledweyne laga dhiso maxaa hortaagan haddii golaha deegaan la sameeyo waxa wax helayo qof hadda waxba loo rabin wax helaa saa darteed marka golaha deegaan in la sameeyaba diyaar looma aha waa qiraad meesha ka muuqata gudoomiye degme iyo duq magaalo ama duq magaalada yaa noqon kara waxaa noqon kara qofka isaga marka tuulooyinka ugu badan kule magaalada ayaa xaq u leh inuu noqdo balse marka cadaalad darrada waxay ka soo bilaabataa dowladda ilaa iyo gobol ilaa iyo tuulo ugu dambayso maxaa yeelay dowladda waxaa la yidhi xaq maana waa xal maxaa yeelay waxaa la qancina oo keliya dadka iyaga markaasi baawar kale oo markaa wax hor istaagi kara gobol imaam marka waxaa haddana la qanciyey qof walba oo markaasi la leeyahay qofkan haddaan waxaas la siinin ma qancaayo gobolkii hawshii kama soconayso marka degmada iyo duqa magaalada waxaa xaq iska leh dadka iyaga markaa ugu deegaanada badan ugu tuulooyinka badan marka tusaalahaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan usoo laabano dadka marka duqa magaalada oo kale la siiyo ama qofka degma la siiyey ma yihiin marka dadka ka mudnaa dad ka mudanaa jooga beelo ka mudanaa jooga laakiin xaqii iyo marka waxba la kala garanayninba iyo xaqdarradii sideedana maamaha waxaa jirta oranaysa hal nirig hal booli ah nirig xaal ma dhasho marka soomaaliya waa la daala maahane cadaalad darrad intay socoto ma la helaayo jawi degan ma la helaayo nidaam degan muxuu ku imaana waxa meesha lagu hayaaba cadaalad darre marka cadaalad la helo ayaa nabad la helaa marka maanta iyo britol iyo maalmaha soo socdaba waxaanu ku eegi doonaa nidaamka federaal ee soomaaliya qaadatay ma yahay mid ka jiro gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan soo qaadan federaal la qaatay ma yahay nidaamka federaal marka la qaato qaabka uu maamulka gobolka Hiiraan u dhisan yahay ma yahay mid sax ah marka la fiiriyo mid sax ma aha maxaa yeelay dadkii xuquuqda Soomaaliland ka soo bilaabo kor dawladda federaalka Soomaaliya beel gobolka Hiiraan beelaha beel deegaan ahaan tuulo ahaan degan ayaa waxay ku leedahay hal xildhibaan beel aan beledweyne tuule aan deegaan aan ku lahayn waxay ku leedahay 3 ama 4 xildhibaan magaalada beledweyne soo noqon marka beelaha mid ka mid beelaha gobolka Hiiraan ayaa waxay ka leeyihiin 5 xubnood ay ku leeyihiin beelna hal xubin ama 2 xubin bay ku leedahay gobolka dhan ama degmada ku leedahayba marka cadaalad ayadoon la helin amni iyo wax ma imaanayaan koow waxa ka hor in cadaalad la helo oo dadka cadaalad loogu garsooro oo maamulka cadaalad loo qaybsado waxa la raadinaa xuquuqda macnaha haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka wartan baarlamaanka haweenka ay ku leeyihiin waxba ka horeysaba dad dhan oo bini aadan oo kula mid ah ayaa waxaa tiri 4.5 hata qof bini aadan oo kula mid ah tiri ilaa iyo siyaad barre iyo dowladihii ka horreeyay ilaa ay tan amaanta joogno inta cadaalad darro socotay warka socon leeyahay maxay dowladaha la dhisay u hagaaglaayeen waxay la hagaaglaayeen cadaalad darro ilaa cadaalad la helane wax ma toosayaan waa maasinta